سعيد عبد الله الدني oo shaaca ka qaaday in laga tashan magacaabista ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre madaxweynaha Puntland Sacid Cabdullaahi Deni ayaa markii ugu horeysay faahfaahsan uga hadlay magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre kaas oo la horgeyn doono maalmaha soo socda baarlamaanka Soomaaliya Sacid Cabdullaahi Deni ayaa shaaca ka qaaday in aan wax wada tashi ah laga sameyn magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub oo ka soo jeeda Jubbaland isagoo walaac ka muujiyay arrintaasi sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu cabasho ka muujinayo sida uu u dhaqmay markii uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud magacaabay ra'iisul wasaaraha isagoo hadalkan ka sheegay kulan uu la yeeshay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland madaxweynaha Puntland Sacid Cabdullaahi Deni ayaa sidoo kale ku faanay inuu kaalin weyn ku lahaa guusha Xasan Sheekh Maxamuud doorashadii ka dhacay 17 magaalada Muqdisho hadalkan ayaa ku soo aaday iyadoo Puntland horay ugu hambalyeysay ra'iisul wasaaraha magacaaban kadib war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada maamulkaasi inkastoo haatan hadalka ka soo baxay Deni uu muujinay inuu ku guuldareystay laba isku day oo mid ahaa in isaga loo magacaabo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ama qof ka soo jeeda deegaanada Puntland tani ayaa sidoo kale muujinaysa Sacid Cabdullaahi Deni oo dhawaan ku laabtay Puntland oo uu ku khasaare kala kulmay doorashadii ka dhacay Soomaaliya gaar ahaan dhinaciisii ah hoggaanka fil Soomaaliya wuxuuna safarkaas Puntland u ahaa dagaal qaatay muddo 2 sano ah dagaalkan oo ku raadinayay fooq ugu sareeya xukunka Soomaaliya ayaa ku soo dhamaaday inuu Sacid Deni uu iskaga laabto deegaanadiisii Puntland fadlan daawada hadii markii ugu horeysay oo muuqaalkeena ku soo gaaray subscribe saar YouTube-keena channel-keena oo ku maasantahay sidoo kale page-keena FB like saar waan ku maasantahay daawashadaada